ilaa 6 guri iyo hantidii taalay ayaa ku basbeelay dab ka kacay koronto xaafadda kalluunka ee degmada Waaberi. abaara 3dii habeenimo ayaa la sheegay in dabkan uu bilowday xilli dadka intooda badan ay ahaayeen kuwa hurdayay, taasoo horseeday inay adkaato deminta dabka ilaa Waaberigii. mid ka mid ah 6 guri ee gubatay ayaa la tilmaamay inuu dabku ka bilowday, iyadoo markii dambena ay keentay inuu dabku ku sii fido dhammaan guryihii u dhawaa. haddaba Cabdirasaaq Xaaji Axmed oo ka mid ah dadkii waxyeeladu ka soo gaartay dabkii kacay ayaa sharaxaya sida ay arintu ku bilaabatay. ilaahay amarkii horta qasaar weyn oo aad u baahan dabka naga soo gaaray. dad badan oo dadna hadda ilaahay amarkii oo dad wax ku noqdo ma jiro, laakiinse naf wax ku gaar ma jiro, balse hanti ayaa aad u burburtay. dadkan qasaar dadkan waxa ku jira hadda inta waxa degan gabar walaashayda, guriga waxa degan hooyadeeya, guriga waxa degan nin saaxiibkii oo dariskeyga ah. hanti dad maanta qasaar loo dadku u badan soo gaartay anaga ahayn. alxamdulillah rabbil caalamiin wixii horta wixii aan sheegnay waa dambi. haddii ban hanti maanta oo hanti bis ay noqotay oo bil aadan oo wax noqonin ilaaha mahdileena. dabka ma xalan wuxuu ka kacay waa koronto. waxa maqlayna moobilo iyo baasabooro oo aad u dad badan ay leeyihiin inay meesha ku gubteen, moobilo qaali inay meesha ku wada gubteen. haddad qaar ku xataa maanta bis waa taqaanaa 6 ama 7 waaye. dadka badan way soo wada adeegteen, dad mashaar wada qaatay ahayeen. dadka ayuu soo wada adeegtay raashinka hadda badan halkaas oo aragteen ama la raashin badan oo ceerin ay ku wada gubteen. dhalinyarada xaafadan degan ayaa si iskooda isku xilqaamay, iyagoo garab ka helayay maamulka gobolka Banaadir oo markii dambe soo diray gawaari dabdamisa, waxaana u suurta gashay in dabka intiisa badan la damiyo lana soo badbaadiyo caruurtii iyo waalidiintii ku jirtay guryaha gubtay. Cabdirashiid Maxamed ayaa ka mid ah dhalinyaradii gurmad ka sameeyay. dhalinyaro ahaan taleefanada iyo waxaan laga soo wacay hal imaado gurmad hal sameeyo. marka imaadna waxaan aragnay dab aad u kacsan oo aad fara badan oo aan gacmeen ku dami karin oo xaraada ku shubno, kii biyo ku shubi karo biyihiisu ku shubi, kii caro ku shubi karo caro ku shubay. ilaa markii dambe nooga soo gaartay mataqaana dawladda hoose ee Xamar noo soo direen waxa la lahaayay dabdamsiyaal inta ka horeysa, laakiin waxa aad u dadaashay dhalinyarada xaafadda oo anaga ka mid ahay. sidoo meel dab ka kaco intee ka imaanayaan gaariyash waaweyn oo dabdamiska waxa la sameeyaa. dhalinyarada xaafadda ayaa inta badan caawiyaan oo biyo kii ku shubi karo, kii caro ku shubi karo. marka runtii qasaara inta uu ka sii badan lahaa asleeyahay haddaan anaga ka soo gaar leen dhalinyar ahaan. biyaha guriga galeen qof walba guriga waxa u taalo Soomahan haana u taalo, haantaas ay biyo ka soo dhureeyna ka shuweynay, qaarna tubooyina tuba kale ku xiriirina ku shuweynay. kulay sidii u dami karno u fudud asmeeyeen. dabka ka dhasha korontada ayaa noqday kuwa saameyn laxaad leh u geysta dadka guryahooda iyo hantidooda.